danaystaha waqiiduda hayee duraya tawfiiqda dali lagu goodoonshiya haddaan daaqad laga tuurin dabar adagna aan lagu qabirin suusku demi maayo. banaanbaxan ayaa maanta waxa uu ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dawlad goboleedka Galmudug waxaana lagu soo dhaweynayay doorashadii shalay ka dhacday magaalada Dhuusamareeb ee lagu doortay madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug iyo ku-xigeenkiisa bulshada ayaana isu soo baxay subax hore iyadoona ay ruuxayeen calamo iyo sidoo kale boorar ay ka muuqdaan sawirrada madaxda dawlad goboleedka Galmudug qaybaha kala duwan ee bulshada kana soo qayb galay banaanbaxan ayaa waxa ay ka hadleen sida ay u taageersan yihiin maamulka cusub ee Galmudug waxa ayna ku baaqeen in dhammaanba loo mideeyo maamulka Galmudug lana soo afjaro wax waliba oo madmadow keeni kara. horta waxaan taageeraynaa oo si buuxda oo aan gambar lahayn oo kala warwareeg lahayn oo u taageeraynaa madaxweynaha cusub ee Galmudug u dhashay iyo ku-xigeenkiisa baarlamaanka guddoonka baarlamaanka Soomaaliyeed ee Galmudug waxa kale oo maaragtay taageeraynaa beesha caalamka oo na taageertay barkee amaal haddii aad gasho waxaa la rabaa in ninkii kuu gala inaad u guddo beesha caalamka ayaan taageeraynaa oo annagana taageertay kadib markay aragtay dadka Galmudug inay dadaalayaan oo ay rabaan dawlad inay rabaan markay aragtay waxaan soo dhaweynaynaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaan soo dhaweynaynaa ra'iisul wasaare xasan cali khayre iyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaan soo dhaweynaynaa caalamka adduunyada inta joogta oo ku faraxday dawladnimada ka dhacday Galmudug ayaan soo dhaweynaynaa waxaan soo dhaweynaynaa reer Galmudug meel ay joogaanba reer Galmudug aan soo dhaweynaynaa waxaan ugu horeyn hambalyo iyo salaan iyo bogaadin u dirayaa madaxda cusub ee Galmudug oo ugu horeeyo madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariyo Qoorqoor madaxweyne ku-xigeenka Galmudug Ali Daahir Ciid gudoomiyaha baarlamaanka Dr. Maxamed Nuur Gacal gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee baarlamaanka Galmudug Cabdullaahi Xirsi gudoomiye ku-xigeenka labaad ee maamul goboleedka Galmudug Faadima Amiira Faande shantoodaba anaa hambalyaha wada u marinaya waxaa mar kale qadarin iyo qiimeyn u sugnaatay shacabweynaha Galmudug gaar ahaan caasimadda Dhuusamareeb oo maanta anbabaxan iyo bogaadintan iyo hambalyeyntan u wada shacabweyno ee madaxdooda Galmudug annaga hadaan dhalinyaradii Galmudug waxaan garab taaganahay madaxdeena Galmudug waxaan uga soo hayaanay guryadeena muddo 7 bilood annaga ku sugnayn caasimadda waxaan u joognaa waxay ahayd in aan Galmudug wax ka dhisano si annagana berrina loola dhiso in aan Galmudug looga sheekayn dhismaheeda annagu aan goobjoog noqono waxaan halkaan bogaadin iyo hambalyo uga dirayaa madaxweynaha qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaarihiisa Xasan Cali Khayre wasiirka arrimaha gudaha Sabriye iyo in allaali intii saameyn ku leeyahay in Galmudug ay maanta halkaan imaato waxa mar kale bogaadin iyo amaan u sugnaatay shacabweynaha Galmudug oo runtii muujiyay dareenkooda aan qarin say u taageerayaan dawladooda madaxweynaha xaq oo la doortay madaxweyne Maxamed Cabdi Kaariyo Qoorqoor ayaan soo dhaweynaynaa waxaan soo dhaweynaynaa oo u soo dhaweynaynaa bulshada reer Galmudug waxay ka daashay in badan 4 sano oo mugdi ayay soo martay waxaan leenahay 4 sano oo iftiin ah oo la tartanno dadka nala midka ah ama deegaanada nala midka ah dawlad goboleedyada kale waa in aan galnaa ilaahayna kugu guuleeyo madaxweynenimada waxaan kaloo leenahay ha lala shaqeeyo annagu waxaan la shaqaynaynaa mar hore iyo mar dambaba shacabka reer Galmudug haddii aan nahay haweenka reer Galmudug waxaan la shaqaynaynaa saqiir iyo kabiir in aan la shaqayno dawladda xaqa ah oo cadaaladda dawladnimana deeqda dawladnimo haddii wixii lagu waayana wax ay tarayaan lama arko dawladnimana deeqda waxaan u hambalyeeynaynaa meel kasta oo taageertay sida safiirka Mareykanka oo kale oo taageeray dawladda Galmudug ee la doortay shalay waxaan leenahay meel walba oo na taageerto waan taageeraynaa haddaan nahay shacabka reer Galmudug gacan hor iyo hoos waxaan sheegaynaa in aan la shaqaynayno dawladda haddii Allah awoodda u ogolaado in aan la shaqaynayno si ay shacabkeenu sare ugu kacaan waxbarasho u helaan caafimaad u helaan horumar u helaan cadaalad u helaan cadaaladii ayaa naga luntay mugdi baan galnay waxaan u baahannahay in aan mugdiga uga baxno ugu dambeyn banaanbaxa ayaa waxaa ka hadlay wasiirro ka tirsanaa dawlad goboleedka Galmudug oo ay ka mid yihiin Cismaan Ciise Nuur Taardhuleed iyo Axmed Mire Faafaale waxa ayna dhankooda u mahad celiyeen beesha caalamku sida ay u taageertay
doorashadii ka dhacday magaalada dhuusamareeb laguna doortay madaxda dowlad goboleedka galmudug dowladda cusub ee dhalatay garab istaagtaan waxaan u malaynaynaa dhowaan bil 2-3 bilood gudahood in mashaariicdii gobolkan iyo deegaanada galmudug oo dhan bilaaban doonto dhuusamareebna laga arki doono isbeddel dhaba hadday tahay waddo hadday tahay xaafisyo hadday tahay waddooyin iyo dhammaan arrimaha bulshada la yidhaahdo sidaa la ajligeed ciidaan ayadu inay waxayn ka qaada maahana waxayn ku soo kordhinayn inay wakhtigiina dhumiso waa aad iyo aad ay dhibaato u tahay ha laga soo laabto waddadii lagu dhumay oo qodxaha badneed ha la aado waddada dawladnimada wakhtigaa kooban aad iyo aad aa u mahadsan tihiin shirku iyo xafladda ajendahoodu waa sidaa waa ka mahad celinayaa xaqiiqda qorraxda fadhisan iyo kulaylka soo dhowaada waxaan kaloo rabaa inaan u mahad celiyo dadkii reer galmudug oo salaadiinta iyo culummada iyo dhallinyarada oyaas iskugu jiray oo 8 bilood fadhiyey dhuusamareeb inay dhisaan dawlad si dadkan uga baxaan dhibaatadii tafaaruqa waxaan leenahay ilaahay maadayn ka gaarto midhihiinnii iyo dawladda dhisteen waa haynaa waana iid abaalguli doonnaa annagoo wax wada dhisannay haddana khaasatan dhuusamareeb hiilka oo liseen aad aa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu la qabna odayaasha dhaqanka iyo qaybaha bulshada sida ay u soo dhaweeyeen oo ugu mahad celiyeen beesha caalamka saaxiibada beesha caalamka oo taageeray dawladda galmudug runtii oona hogaamiyo Mareykanka safiirka Mareykanka Yamamoto waa u mahad celinaynaa waxaase nasiib darro ah runtii inaan hadlama rabin hadalkana igu qasbay siyaasiyiin reer galmudug ah inay maanta ku fakarayaan danahooda qaaska ayagoo fiirinaya inay ku colaadiyaan safiirka Mareykanka maxaa dawladda galmudug u taageertay arintaasu runtii waa arrin aan mudnayn aysan reer galmudug ka filaynin siyaasiyiintooda waa inay noo kala soocan tahay dagaalka aan u qabno shakhsiyaadka ama aan u qabno ama challenge-ga iyo ishaysiga siyaasadeed oo dadka nagala dhaxeeya iyo danta galmudug waa inay noo kala soocan tahay waxaan idiin caddaynaa runtii mashaariicda hadda miiska saaran oo la fulinayo dhismayaasha wasaaradaha iyo madaxtooyadu ay ku jiraan oo haddaba in la bilaabo kaliya la sugaa ayaa magaaladan ka badan magaalooyin waaweyn oo ka tirsan deegaanada galmudug ayaa lagu qabtay isu soo baxyo lagu soo dhaweynayo doorashadii iyo sidoo kale madaxda sare ee dowlad goboleedka galmudug maxamed cabdi maxamed warbaahinta qaranka dhuusamareeb